labiya 40 saacadood loo qaybiyay qoysas danyar 14 oo qoys si ay saacadood u qotaan gobolada oo dhan waxa loo qaybiyay dad kala beerleyda la waraabiyo ee beeraha ahay ee beeraha biyaha dooxay ku dhow 4750 mitir oo tuubooyina oo ay soo baxaan biyaha marka dooxi beer ijaarki mid u dhawaado kii labaad kii saddexaad waa inuu tuubada dheereena saan beeraha badino waxaan loo qaybiyay qoysas gaaraya dhowr iyo 14 qoys waxa la bareejiyay oo dawladdu bixisay 7 cagaf oo la siiyay magaalooyinka beerato iyo oo togdar iyo dabreer waxa beeraha sanadkan soo gaay darag la firana inuu ku filaado oo yaraan bil ama laba dalkeeda hadii si fiican loo isticmaalo waxa cudurka kala duwan laga talaalay 3 milyan oo neef oo xoolo ah waxaana ka qayb qaatay 38 kooxood oo aqoon xoolaha caafimaadka xoolaha qaabilsan waxa la daweeyay milyan iyo bad neef oo isugu jira ari geel lob iyo fardo waxa calafka xoolaha loo qaybiyay lagu naxiyo loo qaybiyay 19550 qoys waxay xukuumaddu soo iibisay 4 dooyood oo la doonayo in lagu taabaro dadka si ay uga faa'iideystaan khayraadka dadka kaabayaasha dhaqaaluhu sida wadooyinka dekedaha iyo garoomada diyaaradu waxay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka waxa si xawli u socda balaarintii iyo casriyeyntii dekeda berbera waxaana dhamaaday wajigii hore 340 waxa la dhisay oo hadda la bilaabay isbeedii oo ilaa 7 gaaraya berbera corridor wadada isku xiraysa berbera iyo xadka Itoobiya oo jaalay waxa dhawaan la bilaabay doonaa dhismaha wadadii ka leexanaysay Hargeysa marka berbera laga soo baxo si culayska dawladda weyn magaalada aanay u cililiyeen oo 22 kiiloomitir ah waxa dawladda Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu ku heshiiyeen in madaarka berbera oo ka Afrika ka weyn 4 kiiloomitir iyo 500 oo dhisan in garoonkaas uu noqdo mid madani ah oo baac mushtarka ka qayb qaata oo diyaaradaha caalamka iska goosha wadada Burco Ceergaabo waxa dhamaaday 201 kiiloomitir 94 dawladii hore dhistay inta kale 107 kiiloomitir labada sano dhammaanaysa waxa la dhisay 449 kiiloomitir oo kamid ah wadada isku xidha Hargeysa Kalabay waxa dhamaaday biriishka isku xidha Camuud iyo magaalada Boorame waxa dayactir balaaran lagu sameeyay jidka isku xidha Laascaanood iyo Tuulo Samakaab iyo Cadays waxa dayactir lagu sameeyay biriishka labaad ee magaalada Burco waxa la wadaa mashruuc casri ah oo lagu xakamaynayo xawaaraha gaadiidka shirarka gaadiidka oo lagu batay awgood sanadkii u dambeeyay 19 waxa shir baabuur ku dhintay 274 qof iyadoo oo laga duulayo muhiimadda daryeelka iyo kor u qaadida adeegga caafimaadka u leeyahay bulshada dawladdu waxay xoog saartay sidii ay dadweynaha u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo tayo leh waxa mudnaanta gaar ah la siiyay adeegyada caafimaad ee qaybaha bulshada ugu nugul sida xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka waxa si rasmi ah xarumaha caafimaadka dawliga ah looga shaqaaleysiiyay 512 xirfadlayaal caafimaad waxa tababar loo furay aqoon kororsi ah 3,100 xirfadlayaal caafimaadka si kor loogu qaado aqoontooda iyo hufnaanta caafimaadka waxa isbitaalada xanaanooyinka
يروح عفمات كان لابد داوي شان بقول لحية لباتنكم لبا بقول صدحية الوطن وحمرك يقول رئيسي إلهي مهدي لقو قلي طبعا عفورة أو وطنها وحقق قبي لقو قوليستي لما أنتم تقلين كودي إياه دولتنا ضمان خرشات عروضها يقاط وحنا هنقلي لبي الله واتم حرمات وأديك عافمات كنا ولو كلية اسم ياشي هرئيتي مدنيال إيا مروبي وحبرشدو وافرها حرمارك وأنا افتينك نرشح إذا كان يدوري حكومته waxa ay hirgelisay kulliyadda tababarka macallimiinta waxaan daraasadda ku eegnay markii aan darisnay in maanta cusbitaalo badan oo caafimaad ku adeeganaya aan leedahay waxa barashadu inta dawladda tagaalka ay iskuulada farabadan yihiin laakiin loo baahan yahay la gaaray waqtigii tayada caafimaadka iyo tayada waxbaridda iyo waxyaalaha daruuriga sida cuntada oo kale dhammaantood tayadooda loo hubin lahaa ayaynu gaaray مرمر حرب المرن مر دوس ولا ما هي ولا حلو فريسنا قصعدوا بيت بالوسوري مر يا اسكنها لا دساه مر ميل عرفتها لا جالسياه مر عافماد ولا ما هي مر وحونها لسو دجياه لكن waxa loo arkaa in la gaaray waqtigii tayada aqoonta iyo caafimaadka iyo cuntada sixir aan la gaaray la ilaalin saadaradeed waxaan kulliyadii macallimiinta 400 oo ugu horeeyay waa la qabtay waxa deeq waxbarasho loo diray 450 arday وحبشي فيروري سنة كان رسمي وبلارمي أرضي كستا ودول لكتادوكسي خوصات حق إلا جالسية والتي وحبر شوية سنة كي هرينتي أنا قابلوه هرموية سنة كان وحل قيمية بقولكم أولا جالسية ضمان دافعها دلك يقول الله أقول وحركة فايسة أرضي جالسة بقول يصلحي كنتم كن يتطبيع صدمات وحلا شقاريسية أفر بقرة أو معلق أو قصب أو لقيي تكسير لكيالا قبل الفرفور واحد على تكسير وحلا ورساه واحد من باترته إن مجالا والبار ورسه تكسير مجالا لكنا ويبتين أو ميلو بمجالا لقسمي أو واحد نسى مجالا يسوي 3 كيلومتر أما خريه مركان مجالا ولا وسعودي عروض شوفته عروض أصلا يسكون ببعض دقالة إنه كل بنت هنود قالوا مركان هاي أدو أما قرب شوجا أيها دوكسي جلسة مركز دوكسي جلسة دولة وحكوات فين المعلمين جالسين تاسو كحوي حاول يسوون كريا حاول نقالين نهاية حصل شيء سنة كم وحمزة مشاهرة الواقع بين أفر بقول أو معلم بسيط متطوع نوعا أما تورع وحبر الكلام وحلا بس سنة كم لا بقول هي حلف صار وعصب أولو كريي بقول يلا دوكسي وكوكري الله والله أوضل تبدأ سناك صول يصاحب مدن يا يمروين ونقول هاي ذلكنا بيو كويريهين مقالوا بدن كل واحد هذه مركا روب كرادو كبير وحكوا على دياتي ديال العالم ديال جرو انه هلا بيها وحلو قبل لبا سنه دنبيي لبيسكون عيال او دادير بريغ هore boqol iyo 60 ka badan ba dawladii kulbiye igu horeysay ee siyaay hoggaanay qoto waxa la yactay 60 iyo 6 ceer oo ku dhaadheer waxa la dhameeyay sahnintooda oo hadda la qoday 3 iyo 3 ceer oo ku dhaadheer waxa la qoday 8 daan ama baleeyo waaweyna xafiir la yiraahdo waxa la yactay 12 daan oo la dhooba waxa la qoday 103 iyo 50 barkadood oo cusub waxaana la dayactiray 203 barkadood oo hore u jiray dhammaan gobollada waxa biyo balaarin laga hirgeliyay magaalooyinka Hargeysa, Burco, Berbera, Ceergaabo iyo Boorama waxa saabitoodu ku jira biyaha Laascaanood waxa meel fiican maraya oo lagu diirsado maraya biyo balaarinta magaalada Hargeysa biyo soo saar iyo biyo qaybo mashruuca soo qaabilsan inagu caawiyay hay'aduhu 6 milyan baa ku baxay dhowr sano socdaal u gaagay ee damarihina wada maamul saaray laakiin biyo soo saarkii 80% baa dhamaaday biyo balaarintiina 30% bay maraysaa si ay biyo balaarinta magaalada u fududeeyo oo u dheereeyo maalin walba halkii qasbada la gelinayay
نبى أرايا أنا قالوا الإسماعيلي وقت أنا قالوا بس هل كي قصود ولا نجى إلا سومري ومتكبر وسيقول أصلا دولة وصلنا من مقدسة وزارة الهند بيشوفها وحبات أهرت عاصي هو حرقت لا يا مره ماير يبرصها في داخل ضد غير ما يعرف وهذا هو قصود أمرتي كبروا هدي قف جرواي ما له يا حرب يدرس الجربين وحسوت كذا إنه ضد تايس كبر على شيء ومالي ضد عام بهاي وضلي يا بيوم مري يا كذا كذا مري لها تهدد أي مقلان دولة إلا ما أربع سنين ما ينه مرك قف كل اسكت عروا فوق كروس وقري وضيق اللي بانك وحلو عري وضيق الحبال لي مرك وحنا لنا أرنتاس ونورش اللي يأكل هذا شقاء أبوك بل يريد إنك سوي كنت دالي ونقال سميني وشقاء قرار أوهن حضارا إنت قادان وشقاء وانا دبات أدوك جلتا إنك لقال هذا ما شاء iyadoo afriba sabab wata sabab ay wada tahay waa loo qabno Soomaaliyeed dadka hadana waxay noo dhawaan ka laga go'doomiyay inaan wax xiriirno hay'adaha caalamiga saadafid waxaan bilownay in dhalinyarada ay isugu geeyeen labada gacmoodba qaranka oo dhan dawlad iyo dadweyne iyo ganacsato si shaqo loo abuuro waana loo abuuro haddii isku tashano oo dhaqaale ay ugu sameeyno warshado iyo hawl mashruucyada ku hawlgala waa soo karnaa ganacsatada waxaa soo jeedinaya in mashaariic waaweyn maal geliyaan wadada soo xidha burciyo oo duwan lacag badan u baahan ganacsatada ma shirkadaha kamid ah maal geliya way karayaan wuxuu ku qaadan karaa waxa la yiraahdo tool inuu dhigto dariiqa laga dhiso custom waqti go'an loo qabto oo xooliska soo bixi karo 25 sano 20 sano inta soo baxay inta la isla eego intaasoo kula dhalinyaro shaqo keena iyo mashaariic waaweyn oo la mid ah abuurka dhaqaalaha waa وإسكاشف هي أمراض إن المال كأنه قلنا دلك أنا أبغى تانا واحد كحرته وقامت الدولة أوطن حكومة كوكتاي قرياشة شعبتهم لما كيه محكمات ورجع قرصاه وخذوا حبيه حديثة أمل عيتيسة مركبة إنه محكمات وبيسه الأيوب صح حسب حرته تانا وكان كرام إنه مسؤول من أنا وين اللي أنا كسر كلمة شغلة أنت بريء بنوفي waxaan abuuray sanduuq qaxo marinta dhalinyarada oo ah in la isugu geeyo lacag dawladda ganacsatada cidina caawinaysa sanduuqaas wuxuu noqonayaa sanduuq dhalinyarada abuur kale laga amaahiyo lacag ay soo celiyaan oo aan dul saar lahayn oo aan ku xidhan yaa garanaysa oo aan ku xidhnayn yaa kaa dambeeya إما كان كسبان العقبة بانك لا يامر وحد خبرية سوى ورور توقف من هذا العز السيوة إنه وحي سوى محكمة قول إرادان إلا هذا قف العقد سوى علم كله وأنا أقرأ أيوة أمر قال لا أمر هو إيش وشيء مكان فقال كي من سلاش ذلك ذاك هو قرأ هذا أمر كي العقد رأي إنه يروح هذا شو أقول أبي شو هذا يقول أما أبي يقول تي تكره العكس كلمة مركز ذلك ذلك مو شبيه وأدنبيه إنه يقول بعيد رسول waxaan soo saaray xeerkii sanduuqa lagu abuurayay waxa kale ku soo dagaalkii ugu horeeyay oo $200,000 golayaasha waxaan abiil soo jeedinaya inay ka hawlgalaan si sanduuqa loo kobcin lahaa dhalinyarada shaqadooda amniga dalka ilaahay mahadi sanadkan ilaahay nabad guulisi amni guulisi ilaahay baa ku mahad talabaad labaad waxa shacab dhammaantu وحلا أمانت يا مهدر على الرياش ورجع لنا شو هرب بدن عليه هبينا بدن يا معلم بدن يا بلا بدن أي كم مقنعين نبضين شقاقين في الولد كبار بريء البيض ويري هني حدوانا أما وزيرة أما عيدنا أو أوي دي أما صار بشي لبت شيء أو بحد نبضين يا أرض يا وريك يا دت شيء وإن رجعت وإن رجعتي هذول هم الحلقات هذه هاي علمه هذه كنعصته إلهي مهدي موافقه يا سفر أيين كنت مني وحلا لك الشقاقة هاي ذكرنا ما تقدر في هذا الجو والله وحكروا صور حدودها ذلك لما أنتم
وعيدنا قلب كسلها كل جلاميه لا رهبة إلى رعد سودافين يجروا وضم هذا بهنا قرق حك أضيع وحيان وحنور رجلنا إن إلهي كأبار مريوه لبت أيوه هيان لما عيدنا قلب كسلها وأنا لا يفقد التكهيرين لكن درس كل ألف طوره إذا ماذا أمنيا هو وردوكا هو بضع هو حبسيضة هي محابسة أو بدي بضرة يبقى لأنها بوليس كقار يبقى مالك يهرب بيعمل خبيث أفر يلا وتجلس ساعات من كبوليس كمان شيء بكوا حكى عصاني ولا ياشا ياشا عبونا وحكى كعصاني إن أي لا شقيا وديت كقاضان علم البوليس كه يقول متجو تدعى يتقال كان بلا معنى هاي أما حافظ هاي سلاية أما هاي سلاية أما تقول هاي سلاية البوليس إلى نقطة دون هو شبرك قاضي إلى هذه كروي نقمانه بين والبن البوليس أمر عوان والله قلت نبر رجع حبض يستقوا أنا ودي لا يوم لا بخلق قمانه بين والبن تاسنوا لبعض أي كريان قبله وحمشعرها هنا من يسوي شيء عطس قرياش يد دوينها أرنتها إلا قفلت هذا والله شقيق ذلك وحكى له خاص بعين دنبيدي كان يعتري مجالويك أنا يرد سمين شيئا بقول كيما سديد يليه تا إلهي ما هدي يلا اسمه تكبر كذا عين اسمه تجي علمه كان عصته ددويره ما له رقمين يبريس كذا ما أنت أنا مجالويك كان بقول كيما تدوات بدوات كأما سيء سيد توبلت بهاي لما تقول إذا ما قلب كسر وراء ضمن الهوشة وأنا هدي قلم وأنا كأمن لي وحلو بيا أبارة إلى أن هذه سنة في الروب يبرواق وخ يا أبارة هو إمكانك تيابلون لبهاي وحتشيل بالبهاي هدي بيها وتشيلي هدي بيها الحراية هدي وحنا قراية هي تشيلي عرفت يدلج الصوت ما حدي لك كيدنا أيوب وأنا خسارين إما لديك أيوب dadkii ku tabaarayay abaarihii saqar iyo abaarihii hore waxa badan baa la tiray oo qoys badan baa xoolo iyo lacag cadaarada loo qaybiyay oo inta badan hay'adaha inaga taageereen oo uga mahadnaqina cid inaga taageertayba waxa ilaahay mahadiya hay'adda kaydka raashinka inay raashin ku filan karo muddo haday dhawaato timaado ay ku sii sababtay bixi karo inay noo hayo oo ay ku dadaaleen wixii ahayeen inay beexamiyeen wixii noo soo go'ayna iyaga lagu qooriyo doorashooyinka laba sano waxa naga dhabaaleen muran madaleysa oo ah hal la bedelo hal la kala diyo kumishaka iyo sharci loo kala diro lama hayo waa kumishaka hore waqtigooda dhamaaday kuwa cusub in magacawnay هو عصوا واحد صامر على السرد الشرعي عدي وحير كسينا صام فلان باصام شيء ماذا حولنا لصامر لي سنو سكريم وصاروا سيداي برلمان كان سيداي محكمة دي وضع رئيسي حضرنا مرة في الرسام كون هلا كراتو يا شرع لو كدرنا ما هي ما هلا كراتو شرع وامر كيو وكيل ودي سنة هاي أيام كانوا ينقول بلادي مرة دي أي حزبية دي قرن كوفة شلمين إني كهشيات arrinta commission oo ah war doorashaha loo qabtay waxa quraay loo fur doorasho gaar ah oo doorashada waajib lagu tahay waa in xisbadii fura horta mid baa yaab dadku waxay lahaayeen oo dadku way weysayn nimanka qoyaasha labada barnaamij dooriyay doorasho dhacday ee kursiga waxa tiraya shacabka inta la xisbada la furo waa furtay taas waxa bulshada ka diyaar u tahay doorashooyinka
عداتها عداتها مش تقول خلاص ما أنت وين عدات إلى بس حملين وإذا كسيد قليل ديارتي دور شوي كيس عفوا وضع حزبها نفر أيها كم ركعي حدي الله ينال الدوان سنخساه وحنا نشوف بدورها وكبد ليك خمسة حرارك وحرام سيد دور شوي اللي سود تجين هذا حزبية نفر أنت هو حافظ ريا تضبطا أيام مركي لا راح يسوى له فرع إن عبس قريب هذا هربوق وكذا ولا يسوق قبصان أنت صوت دورشين صوت مرة وين أبي الله إن نحس بها فرانه وكيل قد تربتها كلوها النيو وكيل درتها كلوها النيو لما أنت تكلم وحنا عسنا إن السنة بتجريها وش أوقع له وأينا كده قنيمنا عبسيط لأنه واخيا أينا قادنا أينا ديمقراطية سوء شنو نبدو arrimaha dibadda waa hal topic dee maanta waayahay arrimaha dibadda intii xukuumadda jirtay dadaal badan waxaan u geysanay in arrinteena qadiyadda Soomaaliyeed xoogeeda la saaro ururka midowga Afrika waayo soddonkaas sano meel kasta oo aynu tagno iyo report kasta iyo madaxweynayaashii hor dadaalkii sameeyeen iyo golayaashii ka horreeyay ilaa golihii ugu horreeyay Cabdiraxmaan Tuur Sheekh Ibrahim Sheekh Ali Marmaantu lahaa computer Ingiriis Soomaaliland ilaa maanta hal erebayn hor taagan oo ah arrintaas Afrika u taala Afrika waxa ka tiraahdo geeska Afrika u taala idinkeedii ka dhaxaysa bilowta wax soo dhah warna waanu saysanaa in kala saar waayahay Afrika gasho oo ugu horeyso mar haddii halka ku soo waqtay 30 sanadood waxay noqotay inaanu Afrika xoog saaro ilaahay mahadi dadaal badan baynu ka galnay waxaan idinku bushaareeyaa in maanta Afrika badankeedu u dhagan ugu shahay in qadiyadda Soomaaliland la keeno golaha Afrika Soomaaliya Soomaaliland arintooda la galo haddaba waxa kala haynoo dambeeyo guulaha kale iyo halka la gaaray sooma bilaawday halka ay wadonaysa waxaan ka bixinayaa arrinta warkeeda maanta aad loo hadalhayo laba mid waa wixii wiiga gandhacay ilaa bish 9keedii midna waxaan dul maray 1960kii ilaa imika dhacdooyin u baahan inaan xusuusino da'yartana u sheegno 9kii bishan February waxaan u baxay magaalada Addis Ababa waxaan u baxay ujeedo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shiraysa halka wafdi uu hogaaminayo wasiirka khaarijiguna joogay iyo aqoon-yahano kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaaliyeed dhamaantood iska xil saaray arrinta Somaliland oo kamid ah isnaa oo kamid ah Maxamed Biixi Yunis oo kamid ah gudoomiyaha xisbiga wadaniga Cirro oo meesha soo dhamaantay aanu kamid ah isnaa qadiyadda in la daafaco iyo laga wada ololeeyo ayaa waxa loo baahdaa inaan ku soo xoojiyo markii la helay dad badan oo u dhigan nugul madaxweynayaal wasiir khaarijiyaal dhammaan la kiiskiin maxaa qariyay maxaa dadka wuxuu sheegi laadiin maxaa soo bixi laadiin socdaalkuna waxaa 9kii waxay maalintii la doortay gudoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmadan wada kala baxay inaan maalinta mar soo noqdaaba 9kii markii aan tagay ee ololaha iyaga aanu galnay ilaa nin waxa doonayaan nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeennimadii inaanu soo baxno 10kii ahayd 10kii maalintii dambe fiidkii anoo 12 soo baxay salaasidan soo baxnayn ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka waxaan u sheegay in salaasada 12 oo prime ministerka Ethiopia marti qaaday xafiiskiisa saacada aan imaado runtii ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu xukuumadda dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika waa prime ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamku siiyay waa nin adduunka intiisa badan iyo dadka
la yiraahdo waxbay faaqidaan ama researcherska iyo cidda wax qorto dhamay ay aad iyo aad u taageeraan oo loo arko inuu yahay ninka sameynaya isbedel geeska Afrika oo dhan isbedelkaas oo nabad isdhexgal iskaashi iyo horumar ku qoto aad baan uga ayaan u farxay markuu uu wacay inuu chance ka siiyo hal halal baan ku tagay aad u ordaya ayaan xafiiskiisa ku tagay koob iyo tobankii salaam iyo kafka ka bacdi laba eroos ku hasaar salaana wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhaxal ku soo jiro hadda soo galayo halkan markiiba isna waa yimid saddexdeedu halka waxaan ku galay shir aanan kullee anigu qorshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin aanan maan kanan ku hayn inuu sidaa fudushkaas u dhacayo waa si kumaatay ra'iisul wasaaraha Ethiopia haddii saan oo ixtiraamay oo isaga oo Afrika oo dhan ku yuugu jirto oo shirki ku jira arrintaas qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u daneeyo waa ma hadaqay halka laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa Prime Minister Abiy wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar u ahay soo diyaar garoon soo xarka xidhay inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Somaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrinta waa galaya Somaliland diyaar nahay waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia halka wax ka badan maxamed cabdullaahina waa aqbalay inta wax ka badan oo barnaamij iyo ajanda iyo faahfaahin midna laba gelin waqtigeedaba laba hayn madaxweynayaal baa meesha istaba socday inta iyo salaaniyo waa yahay aanu diyaar garoonayo waanu diyaar garoobaynaa ayaan ku kala nimid waxa kale oo jira dawladda dhowra oo Afrika leh oo Yurub leh oo Asia leh oo ku jiray arrinta inay dhex galaan Soomaaliya iyo Soomaaliya waxa kamid ah Turkiga waxa kamid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socda halka noogu yimid oo ku diyaar baan u nahay wada hadal kartaydu way noo duuban tahay geed walbana diyaar baan u nahay inaan kartaydu ku gallo annaga u baahan waxaan dhex galaa labada dawladood waxay waliba culays badan saareen madaxweynaha Djibouti oo yiraahdeen adiguna nagu soo beer haddaan nahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna isoo weydiiyay oo yiri arrintaas la yiraahdo maxaan ka yeelan karo aad iyo aad baan soo dhaweynaa inaad soo gasho cid wal artay soo galaysa waan u baahanahay gartaydu way noo go'antay fagaara kama baqayno warwar ma qabno gartaydu way noo taala waa noo duubantay arrintaas intaas ku dhamaatay saas lagu soo kala ma baxay vision 13 February ayaa waxa dhacday arrin kulliba aan badan anigu aan filayn dadka badankooda aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqi ka dhacay Somaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 8 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii xasankeedii lagu diray ninkii sarkaalka ahaa ina cabe raali gelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh marbuu si dulmara u yiri waan ka xunaa wixii ka dhacay ee dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raali gelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad aniga kadkadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raali gelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteena la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya waayo garusho waasid erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlayo ninka hadda raali gelinta bixinay inta in leeyo ka soo horjeeda oo aan saa warkaynin ayuu la hadlay caalamka la hadlay marka maanta
halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow anana waa guddoomayna waxaa raacay haddaba waxaa xumeeyey oo ka daba yimid arrintaasi hadalhaynta imaatinka madaxweynaha soomaaliya la yidhaha hargeyso imanaya waa laba aan isqaban raaligelin baa bixinaya oo waxaasoo dambiyaa qiranaya iyo waan imanayaa waa laba aan isqaban gadaal baynu ka hadli doonaa waxaan ka odhanayno imaatinkiisa laakiin waxaynu raacaynaa maxaa dhacay haddaba raaligelintani maxay ku timi maxaa dhacay jamhuuriyadda somalilan 73 sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyadii ingiriiska 1960kii bishii Juulaay kowdeedii somalilan iyada oo dawladda oo 6 dawlad ahayd oo ahayd dawladdii 15aad ee Afrika ee xorriyadda ka qaadata mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen 35 dawladood ayaa waxay la mudowday dawladdii ka dhalatay Soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan jimcada qurumaha ka dhaxaysa oo maalinta Talyaaniga loo dhiibay Talyaanigu haystay ayaa kowdii Juulaay xorriyaddeeda qaadatay bal qabso iyaga si gaar ciidamo ictiraafin shardi kaliya ayay Soomaaliland kula midowday Soomaaliya iyo koonfurtii shardigaasi wuxuu ahaa in la helo shantii Soomaaliyeed oo midooba taana waa la waayay 30 sano oo la raadinayay madaxweynihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wuxuu si rasmi ah uga noqday midnimadii la raadinayay shanta Soomaaliyeed dabayaaqadii qarnigii tegay waxaanay ku caddahay komunikeeyadii ka soo baxay shirarkii uu ku galay Djibouti iyo Addis Ababa waxa kale oo jooga oo caawa nool markii laga soo noqday dagaalkii 78kii shir uu wasiirada isugu yeeray rag nool caawa oo Hargeysa qaarkood joogaan markii uu soo jeediyay ku daalay raadinta Soomaali weyn oo waynu ka noqonaynaa danteenu ka raacaynaa taasina waa dhaabad meeltaada markii loo codeynayay dastuurkii midnimada sanadkii 61kii dadka Somaliland boqolkiiba 8 baa diiday aftida iyo dastuurka lagu midoobay waxa ka horeysay ma jirin maxay u diideen Somaliland markaa yaa la soo diinaya waxa u diideen ma jira ilaa maanta mana dhamaystira axad lagu midoobay oo labada dawladood saxdeen oo heshiis ahaa oo dhamaystiran oo xeer caalami ah noqon kara ma jirin 30 sanadood midasnay markhaatigeedaan idin sheegaya inqilaabkii 10kii December ka dhacay Hargeysa ee saraakiishii Somaliland ciidamadaha ay doonayeen inay ku soo celiyaan xorriyadda markay arkeen inaan heshiis axdi jirin oo ka dhaxay labada dal markii la xiray ragii inqilaabka wada xasankeed yalaha Allah u naxariistay maxkamad baa la geeyay xamar ku taala 2 sanadood bay maxkamadda socotay markii maxkamaddii gunaanadkeedii la soo gaaray waxa judge ka ahaa nin Ingiriis ah oo la yiraahdo Mr Hazelwood waa ka heli kartaan Google-ka cid walba way ogtahay wuxuu ku dhawaaqay inaanay dambi lahayn waayo ma jiro axad midaysan oo laba dawladood galeen marka waxay daacad u yihiin oo haddii ay ciidan xisaabtamayso dawladdii Somaliland ma jirto dawlad madaxweynaha nimka joogaada cad oo qaadi kara saasaan ku soo bixin waa markhaati cad inaanay marna dhamaystirmin midnimadii aan lahayn maxaa ku xigay markii dastuurkii loo codeeyay ereyga aan maqasheen aadan yawaalays iyo walaweyn oo atu magaalo yar markaa oo mid walba ay ka codeeyeen wax ku dhawr 200 kun dalka ma joogo
ومركا يصوبها maxaa inta ku xiga dhacay markii dawladii la dhisayay dawladii ugu horeysay ee midnimo lagu dhisay waxay ahayd 14 wasiir saddex baa Soomaaliland laga siiyay xaruntiina xawr bay noqotay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo saddexdii taliya ciidan intaasna kuwa furba qaatay ka soo gudub dalka Soomaaliland wuxuu ahaa maalinta la midoobay 6 degmo بورمي هرجيسة بربرة برعو راس عانود يعرقابو لح دقمو ديستريكت اسمها كونفورت وحي أحد لح دقمو ماتشيرتيريا هيران مدوق شبوضة سرع شبوضة هوسي محاد عاي كوبي لحن كي محل السبيل waxaa la soo saaray gobolada dalku ka koobnaanaya midaysan ee Soomaaliland lixdii degmo ee Soomaaliland waxa laga dhigay laba gobol oo qura gobolada bari oo Burco xarun tahay iyo gobolada galbeed oo Hargeysa xaruntii lixdii degmo ee koonfurta lix gobol baa laga dhigay ka soo gudub dagaalkii 77 iyo kii 64kii labadaba boqolkiiba 70 miisaankiisu wuxuu ku dhacay Soomaaliland magaalada burburiyo barakac qaxooti culayskii ciidamada culayskii jabhadaha iyo wixii dhacay weyn owla tafaasiisheeda halku galmayno khasaaraha iyo culayska dalkaasi lahaa mid u mar uga socda gobolada waqooyiga waxa la keenay qaxooti tiradu gaaraysa 400 oo kun waxa koob iyo 10 xero looga dhisay Soomaaliland jalaqsiyo kaliya ayaa xero looga dhisay koonfurta inta ay midaysnaayeen labada dal wixii dhaqaalaha horumarina ama mashaariica ee caalamku ugu deeqay bariya galbeed wixii laga guraayay Ruushya Mareykan iyo Carabba oo bariga aad u irmaanaa boqolkiiba 7 kaliya ayaa ka soo gaaray Soomaaliland oo ahaa wadada ka soo Burco soo gaadha ilaa iyo socota Hargeysa galbeedka u baxda ku ekeed kala baydhka iyo warshadii sibirka ragina wada joogteen ka mid baahaynaha lagu dar hadii wax kala lahayo halka markay marayso 1961 6 Abriil waxa lagu dhawaaqay sanad si loo raadceeyo xorriyadii Soomaaliland ee luntay 60kii dagaalkii ugu weynaa wuxuu dhacay 1988kii dawladdii markaa jirtay waxay soo weerartay shacabkii iyo magaalooyinkii Soomaaliland boqolkiiba 9 magaalooyinka qaar ayaa la baabiyay magaalooyinka waaweyn oo dhow waa la burburiyay buuga ay qortay dawlad dadkeedii dilaysa raaqiye ay qoreen qolada maartay xuquuqda aadamiga ayaa si dhitay oo hayay muddo laba wiiga waxa lagu dilay 50 kun oo qof magaalada Hargeysa iyo Burco iyadoo magaalada ka weyntahay la eegay diyaarada magaalo walba ay burburinayay haddana meelaha dadku badanaya waxa lagu weeraray diyaarado taangi madaafiic iyo gaasas ciidamo luga waxa barakacay 600 oo kun oo deganaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland mid walba gobol walba ayaa ka qaxay oo u farxaday gobolada jaarka ah iyadoo xiriyo waaweyn looga sameeyay bariga Itoobiya kontanka kun ee hore ee wiiga diyaaradaha iyo madaafiiciytaan ku laayeen in ka badan oo laabakeeda ayaa silic iyo darxumo u dhimatay umulle daale waayeel waxa la baabiyay boqolaal sano wixii ay tucanayeen Soomaaliland ee adduunyaha ee aqoonaha ee buugaha
waxba lagama bixin waa la cirib tiray taariikhda Soomaaliland si ula kasa loo baabi'iyay hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa human rights qaabilsan iyadoo kaashanaysa unuga ama unitka u qaabilsanaa Somaliland UNCO ood ka wada heli kartaan Google-ka 2001 waxay ka marag fureen oo xaqiijiyeen qoraalkooda ku qoreen wixii ka dhacay Somaliland dawayaaqadii qarnigii tagay ee dawladdii Somali Democratic Republic ay ku samaysay inuu ahaa xasuuq bin aadmi waa maragmadoon waana tuu ka marag furaya farmaajo Ameerika marawlay waxa la xaqiijiyay oo imika la hayaa sahankooda 43 xabaalo wadareed oo dadkii qaar baa iyaga oo nool kal sheekh magaalada la yiraahdo inta dadkii lagu riday goof lagu uriyay iyaga oo nool iska rogooyin lagu dulguray qaar baa iyaga oo nool gabri lagu gubay waxaa soo dhan ka soo iyadoo waxaa soo dhameeyeen 18 May Somaliland burcay isugu timi markay aragtay Somaliland wax garadkeedu uu dhamaa markay aragtay inaanu jirin axad midaya Soomaaliya Somaliland oo dhammaystiran oo caalami oo sharci qabanaya ah markay aragtay sida dawladdii Soomaaliya ee la yiri hal doonashantii Soomaaliyeed loogu hungoobay in Soomaaliyeed heleen walba u tashaday markay Somaliland aragtay in dawladdii Somali Democratic Republic ay si toos ah uga noqotay ballantii ahayd Soomaaliland hal doono markay aragtay Somaliland ay garowsatay burburka iyo dulmiga iyo dilka iyo dhaca iyo xumaynta loo geystay iyada oo madax dhaqameedkeeda siyaasigeeda suldaankeeda jabhadkeeda ciidan beeleedkeeda isu dhan waxay go'aansatay in dalka lagu soo celiyo halkii uu joogay 26 June 1960 oo noqday gaaritaanka waa rabitaanka shacbiga waa codka ugu weyn ee xaqiijin kara waa codkii maalintii hore shacbiga Somaliland yiri shuruud aan lagu geeyay xamar la yaa garaad waa dadkii lahaa midnimada la doonayaa waxba gurgurtada Soomaaliya la soo doonayaa maanta waxay leeyihiin maya waanu eednay ku noqon mayno intii ay 30 sanadood kala maqnayn intii ay jirtay Somaliland waxa taa ka daran wixii hore dhacay 30 sano dawladii Soomaaliya isaga dambeeyay ee taamaanta ku jirta dagaalkay hore ka adag oo caalamka oo dhan ah ayay u galeen inaanay Somaliland hirgelin inay cunaqabateeyaan inay adduunka oo dhan ka hor joogsadaan oo aad muddo Somaliland inay ahayd qolo ay adoonsadaan oo qool gaar ah ku xidheen ay adduunka la mareen oo aanay Somaliland yeelayn markaan soo gaabiyo dawladdan ugu dambaysa markaan soo koobo dawladdan Soomaaliya maanta ee Maxamed Cabdullaahi hogaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dawladdan soo martay inkastoo maanta raali gelin uu bixiyay oo moodaysa inuu wado wanaagsan u bayray waxba ka daba keenay waxay ahayd dawladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Somaliland saad dhinac walba uga dagaalanto dhowr qodob baan ka soo qaaday waxa kamid ah horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabataynta ee iska hortaagtay Somaliland in caalamka ay cid baxay la yeelato ku wax siya dhaaf inaanay cid bal la baayimsaray karin inaanay cid wax siin karin waxa wada ogsoontay dagaalka ay ka gashay mashruuca ballaarinta berbera ee bareerka ahaa waxa kamid ah horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ah Somaliland ee dawladdu ka siirayeen special
arrangement Somaliland ee ra'iisul wasaaraha jooga intuu qoray yiri lama sii karo amaanka dawladda bal hadda dhugo maan la wixii soo dhacay iyo halku wax marinayo waxa kamid ah horjoogsiga heshiiska ay wada galeen xasan sheekh oo isaga ka horeeyay iyo sidaayo ee ahaa hawada iyo lacagta hawada ee aan wada lahayn in la qaybsado oo qoraal ku aqoon walba intay qaadanaysa sida loo maamulayo oo ay ku doodeen ikaw anagana la ictiraafsan yahay cid kale lama hadli karo oo ilaa maanta xalibay waxa kamid ah in wax alliyo wixii dhaqaale ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dawladdii Soomaaliyeed ee naga dhaxaysay inay ku go'aansadeen dhammaantood in aan Soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo Soomaaliland taa way diiday cad qureed ma siisatay xorriyadeeda waxa kamid ah inay dagaal la gasho oo xidhiidhka u geyso dawlad kasta iyo hay'ad kasta oo xurmayso ama maamusta Somaliland qaran ahaan iyo qof ahaanba tusaale waxa inoogu filan inay gini cilaaqaadka u jirtay markay magaca Somaliland iyo shacabka Somaliland karaama iyo maamus u muujisay waxaan ku soo koobayaa waxa soo dhacay 60 sanadood dul xaadiska ah oo kun buug beesh laga qori karo oo dokumentigooda iyo waaqicigooda hay ee aan ahayn laab la kaciyo caadifad maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaar karnaa laba qodob oo kaliya balka mid saxada ay keeno Soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Somaliland iyo xaq ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaadnimada u galeen ee shacbiga Somaliland gaaray 18 May 1900 بشارة بالخير لها دادوينة وشركة داوينة الطبيعية اللي يرادو أصلي ملس مفرور عيا فننكي وجهها فتدكو نقضو فولكاغي با تدكو فيرصدو ادو فرصبي لما نكو فاهمين هورتا قبل فروي يا سلام هدبا انتان حيريا فندال كلا دعين قادي شركة أصلي ملس شركة كو عام بحدي داوية كدبيعية إما كراكوها هنا نلاحي لبدل oo midoobay iyaga oo isqasbin oo frontiera maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka ee ahadigi Soomaaliland gaadhay burco distoorkeenu inuu ku dhisan yahay qof kasta dalka hogaamiyana uu ku qasbay oo kala xaleexan karin waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland iyo Hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal hayntaaba xun madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri raalgelin baan bixiyay laakiin wuxuu ku diray markuu yiri waan imanayaa Hargeysa oo sideebuu ku imanayaa la isweydiinaya sideebuu ku imanayaa xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiye galeen ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaaranaya soo maaha waan imanaya macnu soo wada soo inta maaha oo taameen aqbalayna maya suurtagal maaha ma yeelayno suurtagal ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabad qaad raalgelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo aqlida ay soo socoto laakiin ku iibsan mayno eref laga yiri waan ku soo siyaaranaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad inaan u baahnayn oo birawa markaan soo koobo hadal haynta
leeyahay wuxuu imanayaa Soomaaliya imanayaa buu yiri madaxweynaha Muqdisho anu wax kale oo garan maayo aan ku cabiree gabaygii Faarax Nuure kala gooyin baa arintaa ka jawaabaya Faarax wuxuu yiri qosol beera foolal qayaxan qiilan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hoos yaalo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigane maaniga midii lay qarshaa laygu qali doono qoontiiba lama baananine qarayara nabadu waryaara kala quusanaya qomamada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا محبين كالقعن ما شيخ حدي مقابل ورد الصومال مدحوينه aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay ka jasaaysi ama asasi nabadgelyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo jeediyay khudbad dastuuriya oo markaas